kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada qofka idinla hadlay waa saaxiibkiin Daahir Xasan waxaa halkan ku duubeynaa muuqaal yar oo kooban oo markaas aan uga hadlayno mid ka mid ah ratio-yinka lagu maareeyo waxqabadka shirkadaha ganacsiyada ama charitiska ama local governmentska waxay qayb ka tahay labada qayb oo wax lagu maareeyo ama wax lagu qiimeeyo oo kala ah ama wax financial ah mid ama ah financial oo maaliyadda khusayso iyo mid ah non financial oo ah mid markaasi aanan maaliyadda khusaynin kuwa maaliyadda khuseeyo waxaa ka mid ah liquidity waa khali doonaa laakiin waxay khusaysaa cashka markaas uu ganacsiga hayo waxaa kaloo ka mid ah profitability ratios oo ah ayagana ratio-yin markaas lagu cabirayo ama lagu halbeegayo faa'iidooyinka ama hababka faa'iido ee ganacsiga ama shirkadaha ay sameeyaan marka qaybtana inta ay soo gelaysaa oo waa gearing ratio ayadana waxaa lagu cabiraa deymaha iyo maalgashiga khaasatan deynta haddaba qaybtan kaleeto oo non financialka ahna waxaa ka mid ah customer satisfaction camal oo ah qanacsanaanta dadka macaamiisha ah maaragtay iyo legalityga oo mataqaanaa compliant lagu noqdo oo mataqaanaa ay sheegay in loo hoggaansamo shuruucda iyo waxyaabaha la halmaalo ayagana muuqaalo kale ay ka sameyn doonaa gaaban sababta gearing ratio aan u doortay baa maaragtay inaan idinla wadaaga waxay tahay xogaa maaragtay waa dadka weer dhibtaa khaasatan ardayda marka gearing ratio waxa u baahan tahay kaliya inaad ka fahantid kow in ay khusayso deymaha debt ay khusayso labo in laba nooc loo xisaabiyo oo aan ku wadaagi doono hoos intaas oo kaliya ayaa muhiim ah mid saddexaadna inaad conceptiga fahantid kadibna aad awood u yeelatid inaad ku apply garaysid imtixaanaadka su'aalaha iyo real life scenarioska kula soo dirso ayaa muhiim ah marka imaano financial ratios okay gearing ratio waa ratio oo loo isticmaalo in lagu cabiro qaybta maaliyadda ama qaybta mataqaanaa dakhliga ama lacagta lagu maalgeliyo shirkadda taasoo ka imaaday deynta intaas ay baahantay inaad fahantid taas waa qeexitaanka gearing marka gearing waxaa laga wadaa waa cabir loogu talagalay in lagu cabiro ama waa ratio loogu talagalay in lagu cabiro imisa ka mid ah lacagta lagu maalgeliyay shirkadda ayaa ka timid deyn sida ognahay shirkadda markii la maalgelinayo waxaa lagu maalgeliyaa dhowr waxyaabood kow waxaa lagu maalgelin karaa in maaragtay dadka shareholderska ay maaragtay ay lacag meesha geliyaan midana waxaa la dhahaa equity investing marka equity waxay u taagan tahay waa dakhliga ka imaaday dadka stakeholderska dadka shareholderska ka timid midda labaad oo shirkadda lagu maalgeliyana waxaa waaye debt oo waa deyntana waxay ka imaan kartaa bangiyada waxay ka imaan kartaa shirkadaha kale waxay ka imaan kartaa shakhsiyaad waxay ka imaan kartaa dowladda marka gearingka waxay cabiraysaa oo loogu talagalay gearing ratio waxaa loogu talagalay in lagu cabiro imisa maalgashiga guud oo labadan aan isku daray ah oo maaragtay lagu maalgeliyay shirkadda ayaa deyn ah su-aasha ay ka jawaabayso waa su-aashaas markii aad ka jawaabtid haddii ay kuu soo baxdo gearing oo badan oo mataqaanaa sare uu yahay cadadkeedu waxay maaragtay sheegay muujinaysaa in mataqaanaa ganacsigaasi ay ku adag tahay inuu deymihii uu galay uu dib soo celiyo marka high gearing waa ratio-daasi hadday kor aado oo markii aad xisaabisid ay number weyn uu ku soo baxo waxaa suuragal ah in ganacsiga maaragtay ay ku adag tahay in deyntii lagu lahaa uu soo celiyo oo macnaheedu tahay in deyn badan uu isticmaalay taas oo lagu maalgeliyay ganacsiga waxyar inta waxaa ka taabanaynaa maxay tahay faa'iidada horta kow laga helo in
deyn lagu maalgashado company. Tusaale company ganacsi aad furanaysaa, ganacsigan aad furanaysid oo maalgashi ku sameynaysid, ama waxaa ku maalgelin kartaa lacagtaada adiga aad leedahay, ama lacag ayaa soo amahan kartaa. Marka lacagtaas soo amahatay maxay tahay faa'iidada kugu jirto ganacsi ahaan inaad lacag aan lahayn aad maalgashi ku samaystid? Kow, lacagaha noocaas ah oo aad soo deensatay inta badan waxaa waaye ii sheegay inta badan waxay ka raqiisan yihiin, inta badan waxay soo celiyaan return ka badan lacagta oo dadka maalgashadayaasha ah laga soo qaaday. Dadka maalgashadayaasha ah oo shareholderska lacagta laga soo qaaday ee company-ga lagu maalgeliyay inta badan waxay ka rabaan return weyn. Tusaale 5 qof ayaa company isla leh, mid kasta wuxuu keenay 10,000. Marka waxaa laga yaabaa 5taas qof inay wada fadhiistaan ay go'aan ku gaaraan in ay sanadkii lacagtooda ka rabaan 10% oo maaragtay return ah. Laakiin markaad deyn soo qaadato oo bangi lacag loo deensatid ama qof maaragtay aad lacag soo amahatid, lacagta oo interest-ga oo markaas cost of capital-ka oo dulsaarka ah oo saaran waxaa laga yaabaa inuu yahay 2%, halka kuwan kale ay 10% rabeen. Arrintan mataqaanaa ii sheegay dabcan waa legality-geeda waa sheeko kale, iyo isticmaalkeeda iyo inuu kuu banaayahay in kale, laakiin bas xisaab ahaan ayaa muhiim inaad u fahantid. Marka lacagta aad soo amahatay return-ka dulsaarka saaran oo cost of capital-ka loo yaqaano wuxuu ka hooseeyaa lacagta ay dadka shareholderska ah ay ku maalgashadeen ganacsiga. Taas waa midda koowaad. Midda labaadna lacagtan dadka aad kasoo amahatay waa tax deductible. Tax deductible waxaa laga wadaa markii la xisaabinayo markii la xisaabinayo canshuurta laga qaaday ganacsiga wixii deyn ahayd waa laga jarayaa, markaas kadib ayaa la canshuuraya ganacsigaas. taas ayaa marka iyadana faa'iido ka lah. Marka labada faa'iido ugu muhiimsan oo equity oo debt finance loo isticmaalo waa labadan. Waxaan soo dedegeynaa marka formulooyinka la isticmaalo. Formulada koowaad maaragtay lagu xisaabiyo waxaa waaye waa debt oo ah deyntii oo loo qaybiyey equity. Equity waxaa waaye wixii dhamaa oo maaragtay shay lagu maalgeliyey, wixii maaragtay shareholderska ay leeyihiin shirkadda oo lagu dhuftay 100. Marka midaan maxay ay tahay ii sheegay resultiga ka filnayn in soo saarto. Kow, imisa lacagta lagu maalgeliyey company-ga oo equity-ga ah, lacagta maalgashiga oo lagu maalgeliyey equity-ga, lacagta lagu maalgeliyey company-ga imisa ayaa deyn ah. Marka midaan deyntii hoos ma ku jirto, just kaliya waxaa waaye lacagta deynta ahayd oo shirkadda ay soo amahatay ama deyntaas ha isticmaasho oo maaragtay shirkadda ha geliso ama cash ahaan u haysato ayay u taalaa. Laakiin markaa xisaabinaysid waxaa isku qaybinaysaa debt-kii oo deynta ah ayaa waxa u qaybinaysaa debt-ka waxa u qaybinaysaa equity-ga, kadib waxa u dhufanaysaa 100. Waxa ku soo baxo ayaa waxay noqonaysaa the amount of debt or invested in the business. Okay. Formulada labaad oo ayadana qaacidada labaad iyadana lagu xisaabo waxaa waaye inaad debt-kii oo deynti ah aad u qaybisid equity-gii oo lacagta ay gashadeen maalgashadayaasha shareholderska oo lagu daray lacagta deynteed. Tusaale oo dhuftay 100. Haddii deynta ay 100 ahayd, dadka maaragtay sheegay maalgashadayaashana lacag la siiyay 100,000 ah ay iska aruuriyeen ay ganacsi geliyeen, tan lacagta deynta aad soo qaadateen la siiyay waxay ahayd 10,000. Marka 10,000 intaa ku daraysaa marka dhow soo wax noqonaysaa 110,000, kadib waxaa ku dhufanaysaa boqolkiiba percentage oo boqolkiiba. Marka waxay sameynaysaa imisa ayaa boqolkiiba deyn ah lacagta lagu maalgeliyey ganacsiga. That is what you're trying to find out. So haddii aad ka shaqaysid waxay noqonaysaa inta waxaa saaran 4 eber, inta haddaa 4 eber u surtid inta waxaa waaye 1/1000. So haddii aad
laba eber xagga ka marisid, so it's going to be 0.001% intaasaa maaragtay boqolkiiba intaasaa marka soo amaatay markii 100,000 la maalgeliyey ganacsiga oo 10,000 oo kamid ah markii 110,000 ganacsi la maalgeliyey oo intaas 10,000 oo kamid ah aad soo amaatay haddii aad doonaysid percentage-ka saas ayaa loo xisaabiyaa midaan kalena waa straightforward way fududahay marka muhiimadda aan ka leenahay maxaa waaye oo u xisaabinayna gearing ratio waxaa loo isticmaalaa in lagu compare gareeyo in isku barbardhig lagu sameeyo kambaniyasha oo la fiiriyo kambaniga gearingkiisa waa intaan kambaniga kalena gearingkiisa waa intaan marka midka kambanigii oo markaas gearingkiisa u sarreeya ayaa waxay tahay wuxuu isticmaalayaa deyn badan oo loo isticmaalay xagga maalgashiga waxaa kaloo ku fiiri kartaa sanadka markaas ka horreeyay mataqaanaa sanadkaa taagan ayaa waxaa ku compare garan kartaa oo barbardhig ku samayn kartaa sanadka soo dhaafay sidoo kale waxaa samayn kartaa industry average waxaa waaye ganacsiga qaybtuu ka tirsan yahay hadduu ganacsiga transport tirsan yahay transportka dhan ganacsiyada ka tirsan waxay leeyihiin average oo celcelis ah celceliskaas ayaa waxaa ku compare garanaysaa wixii aad kuu soo baxay markaas ayaa mataqaanaa sheegay macna ay kuu samaynaysaa oo maaragtay ay kugu caawinaysaa go-aan gaar inaad samaysid fiican haddii gearingka waxaa yahay macnaheedu waxaa waaye most likely macnaheedu waxaa waaye mararka qaarkood in maaragtay ganacsigaas uusan haysanin cash ku filan oo uu maaragtay iskaga bixiyo deemihii taasna marka waxaa waaye markii bangiga aad tagtid camal waxay fiirinayaan gearingkaaga hadduu haa yahay waxay leeyihiin qofkan cash ma haysto marka lacag laguma amaahinayo shaqaalaha maaragtay ku shaqeyn rabaan haddii arkaan gearingka inuu haa yahay sidoo kale waxay sameynayaan way boos raadsanayaan oo maaragtay shayga waxay isleeyihiin shaqadan waxay martaa shaqo kala raadsada waxyaabo badan saas ah maaragtay loo adeegsadaa marka sidaan kusoo gabagabaynaynaa muuqaal kooban ayaa waxaa ka samayn doonaa ratioyin kala fara badan sidoo kale waxaa jiro update cusub oo maaragtay ku saabsan cost maaragtay sheegay contentiga taas oo ayadana muuqaal cusub ama dhow ka samayn doono marka stay tuned dhammaan ardayda ku xiran channelkana waxaa idin rajaynayaa guul waarto iyo is arag dambe oo xiiso leh mahadsantiin